maamulka sare ee jaamacadda Alfa ayaa kulan kula qaatay xarunta jaamacaddaasi wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha jaamacadda William Carey oo ku taala dalka Mareykanka. kulankaasi ay kala hogaaminayeen labada gudoomiye ee jaamacadda Alfa Professor Cabdiraxmaan Maxamed Maal iyo gudoomiyaha jaamacadda William Carey ee ku taala dalka Mareykanka. kulankaasi ay labada jaamacadood ku kala saxiixanayeen heshiis iskaashi oo dhex mari doona labada jaamacadood ayaa markii uu soo dhamaaday kulankaasi waxa ka warbixiyay ujeedada uu daaranaa kulankaasi Professor Xamse Xaaji Maxamed oo ah dhinka kulliyadda Social Science-ka iyo madaxa xarunta cilmi baadhista ee jaamacadda Alfa isagoo ku hadlaya afka maamulka jaamacadda Alfa. maanta waxaan iskugu nimi wafdi culus oo ka socda waddanka Mareykanka gaar ahaan jaamacadda la yiraahdo William Carey University iyo hay'adaha inta badan aan xiriirka leenahay qaar ka mid ah saraakiishoodii oo halkan iyaguna nala jooga anigoo markaa ka wakiilo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda ayaanu halkan kulan ballaaran ku yeelanay waxaanu ka wada hadlaynay sidii aanu iskaashi ballaaran uga sameyn lahayn dhinaca programka masterta oo jaamacadda Alfa ay iska kaashadaan jaamacadda Lincoln University ee waddanka Malaysia. marka sida aad la socoto programkayga masterku waxa uu kaga duwan yahay jaamacadaha kale ee dalka anaga wuxuu ka yimaadaa Malaysia waana programka kaliya ee international waxaanu nahay jaamacadda kaliya programkayga masterku yahay international oo xiriir adag ayaa anaga naga dhaxeeya jaamacado waaweyn oo caalamka. marka hore waxaanu u lahayn xiriir iyo collaboration aanu la lahayn jaamacadda Lincoln ee waddanka Malaysia oo programkayga masterku uu si toos ah ugu tacalluqay. maantana waxaanu doonaynaa inaanu sameeyno xiriir cusub oo aan la yeelanayna jaamacadda la yiraahdo William Carey University oo ku taala waddanka Mareykanka gaar ahaan gobolka California. marka halkan waxaa fadhiya wafdi culus oo ka socda jaamacaddaasi waxaana hogaaminaya presidentka jaamacaddaasi William Carey University Mr. Kevin. marka waxaan jeclaysanay inaan halkan si toos ah aan u eelaamino in aanu sameynayno xiriir aanu soo kordhinay oo cusub oo ah dhinacii programka masterka. marka imika wixii ka dambeeya jaamacadda Alfa oo marka horeba xiriir wanaagsan la lahayd jaamacadaha Malaysia iyo dalalka kale ee caalamka ayaa waxaanu doonaynaa inaanu maantana soo kordhino xiriir cusub oo aanu la yeelano dhinaca waddanka Mareykanka jaamacadihiisa. marka professorska waaweyn ee halkan joogay waxa hogaaminaya gudoomiyihii jaamacaddaas horena halkan aanu heshiis ugu saxeexanay aanu la galnay jaamacadaha kale. marka imika programkayga masterku wuxuu noqon doonaa mid sidii hore ka sii horumarsan oo nidaamkii markii hore uu shaqeyn jiray ayaa dib u casriyeyn iyo dib u habeyn ballaaran ayaa lagu sameeyay. waxaanu soo kordhinay programyo cusub oo dhinacii masterta waxaanu imika focus ka saarnaa in ku dadaalina in wax badan aanu ka bedelno haddii alla ka dhigo. marka saaxiibada maanta halkan joogay waddanka Mareykanka Kenya waliba jaamacaddaasi waxa weeyaan waa xiriir cusub oo maanta noo bilaabmay oo haddii alla ka dhigo noqon doona mid aanu sii xoojina haddii alla yiraahdo. deegaanka jaamacadda Alfa iyo guud ahaanba ardayda reer Somaliland ee programka masterta doonaya inay soo galaan fursad fiican bay u heli doonaan oo aanay ardayda kale helin. marka nidaamkan wada shaqeynayna qaabka wada shaqeyntaasi noqonayso waxyaalaha aanu doonayno inaanu isla discuss gareyno qaabka aanu rabnay inaanu waxaan u improve gareyno waxaasoo dhan baanu isla naaqishnay. marka haddii alla ka dhigo iyadoo faahfaahsanna haddii alla ka dhigo waanu soo gudbin doonaa haddii alla ka dhigo. maantana waxaanu haddii alla ka dhigo halkan ka iclaaminayna in xiriirkaasi maanta uu soo kordhay waan intaan ugu bishaaraynayno ardaydeeda masterta in maanta xiriir fiican oo wanaagsan oo international ah aanu la yeelanay jaamacadda William Carey University. marka waxa weeye aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waqtigooda wanaagsan ee maanta iyaguna ay nala qaateen. kulanka aan wada yeelanayno wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo waxyaalo fara badan aan kaga wada hadalnay iyo iskaashiga labada jaamacadood oo xiriirkooda maanta bilaabmay halkaan aan ka sii wadi doono haddii alla ka dhigo. marka waxaan rajaynaynaa in programkaasi isbedel weyn iyo guulo waaweyn haddii alla ka dhigo oo ku soo idlaan doono insha Allah. Maxamed Deeq Ismaaciil Xaashi telefishinka bulsho magaalada Hargeysa.